هي أصحابي والسلام وحا أركي سومالي بدن أو بنام بحسو أو دم خناسو ويلك أفريكان أمريكان كأها عنصر نمدا نيكا عدان كأها وكديلي محلا قورتي سوق فديو من الصوتنا سومالي بدن أو بنام بحس ودو عسرك كويا ريلي ودرتو محلا سو ديك السعود فيديو لغا سو دوارقني وحا أرك انتا سوكلو ماما سو ماموين سوماليا دد سوماليا دو عنصر نمدا ويلكاس لغولا دقمي لغو ديلي نيكا عدان كأها وكديلي كسو هرجيدو وواح في عن محل عنصرنا مثل بنام بإنك سهور جسد وواح محلها في عن كل تلا قفل بو إنه كدم خلا لكن سؤال وحي وصل على هدا أركو مردت كي سوماليا عنصرنا مكسهور جد أو كدم خنا عنصرنا أو كبنام بحاي سؤال وحي يقول لسا كورن ضد نلا دشتي دلك إيديان كان لو ذاوي مانول بعنصريين إنه حنون أنت لا دريمي كراوا ما أنت حنون نين مذو كله كلية أو نين عدان عنصرنا كدلي حنون أنت سلا ودريموسا كورن كان دلك إيديان كإيد نمذو كله وذاوي عنصريين سوحو كاجد دوين هذا نوجدين حنون أنت لا ودريمي كرا ما أنت وين قفل بوسومالي وسويدين كرا كورن كان سومالي كله مدجان وبحسي أو مديوان وبحسي أو أنت magacanta oo bixisay caruurtaad u sheegayso waliba inaysan gursan karin waliba maxallay wadada ku caanis oo rabtay inaad dhulkiis xoog ku qaad oo aadan xil u ogoleen oo dalka inuu wax ka noqdo ogoleen oo dalkii uu lahaa iyo deegaankiisa ahaan asaas kula sameynaysid xanuun inta la ugu dareemi karaa waa maanta waa inuu maxallay isha qof walba Soomaali waa inuu isweydiiyaa maanta doonin cadaan waxna u geysto qof madax u geysto xanuunka dareemis mid ka xun ay dareemaan iyaga sababtu waxay tahay adiga عنصريين waxaa kaga duwan tahay male ninka cadaanka color uu kaga duwan laakiin adiga dadka Soomaaliyeed ma nool cunsurinimada ku heystay maxaa kaga duwan tahay maxay kaga duwan yihiin way ku eg yihiin deegaan maxallay color diin inta way kula wadaagaan ma nool bana cunsuriyeenaysa xilalaadan u ogoleenina maxallay caruurtooda caynaysan oo afrigaadeenaysan oo dhulalkooda xoog uga qaadanaysan oo ilmihiina waxa baraysan ma gursan kartan oo haday gursan deernaysan ama xoog uga soo celinaysan soo marka dadkii Soomaaliyeed waxaa rabaa inay isweydiiyaan su'aal cunsurnimo haddii markaan arkay Soomaaliyeed cunsurnimo u damqana oo banaan baxay waa ku farxay laakiin hadda sidoo kale waxa niyad iska dhahay oo maxallay anaga dhaxdana cunsuriyeenayna qabiilada Soomaaliyeed qaar alcaana la afagaadeenay oo maxallay war ka waran dhulkaagii maanta war ninka African American ka in cadaan u dilay wuxuu ogyahay at least inuu Mareykanka lagu keensaday maxallay adoonsinimo asalkiisa Afrika ka soo jeedo haduu maanta Afrika u joogi lahaan asiyaan ku dhici lahaan oo qalbigiisa hoos ka ogyahay laakiin ka warkanka Soomaaliya kule amaanul cunsuriyeenaysid isma dhahay meel hebel ka soo jeeda isma dhahay hadaa meel hebel joogi lahayd soo ka soo jeeda hadaa jir lahayd maanta Soomaaliya kuma cunsuriyada kuma soo dhacis because meeshu ku dhashto dhiicaankiisa dhiigayso dalkiisa ku cunsuriyeenaysa akaga haysata ina kaga fiicanta akaga haysata ina maxallay uu ka xun yahay amaan walba ku yeesaysa soo xanuun inta lagu dareema maanta in adiga isweydiin kartid raba ka waran dhulkayga hooyay dalkayga hadii maan walba iga haysto in la iga fiican yahay xanuun inta laga dareemaya haddii ka waran maanta dad ii kala reegan waxba iga duwaneen kala diin iyo dhaqan inta aan iga fiicneen haddii ii haystaan in aniga iga khalito xanuun inta laga dareemaya so cunsurnimo haddaan ka hadalno Soomaali anaga dhaxdan intaas ku heen maanta waa inaan joojina caruurta hadaa bari jirta qabiil hebel waa la yeesa maanta waa inaan bartaa Soomaali oo dhan waa isku mid hadaa caruurta u sheegi jirta reer hebel ma gursi kartay maanta waa inaan u sheegi kartaa in caruurta Soomaali cidana waan ka gursan karan waa Soomaali oo dhan isku mid wax ay ku kala duwan yihiin jiray so haddaan rabno in waxaas maxallay nuqusnimada xun iyo cunsurnimada xun iyo xanuunka aan dadkeena Soomaaliyeed ku hayno maanta adigana sidaas isbedel ku sameey hadaa shal u haysad in reer hebel oo Thailand dheeri waxaan ku faanadeys maanta waa inaad iska raadicin kartaa inaad Soomaali tahay oo Soomaalinimada qof walba Soomaali kula ahayn isku ka mid ku yihiin maanta waa inaad adiga iska raadicin kartaa bar caruurtaadina Soomaali isku tahay ina Soomaali maxay isku mid tahay isbar adigana Soomaali oo dhan isku mid tahay hadaa dad Soomaaliyeed hor u cunsurayso wajiga dib u geysatay jirtan please and please inta u tirtiraal gelin weydiiso maanta laga bilaabo adiga isbedel isku samee guriga inta kula degan caruurtaas isbedel ku samee dariskana ku samee midkan oo mid kala duwan nafsadiisa bedelo anagoo dhan bulsho fiican aan noqonina so ma ku damqasay cunsurnimada lagu la dhaqmo wiilka African American ka ahaa ee ninka cadaanka uu ku dilay way xanuun badan tahay waa ka damqada anigaba laakiin waxa ka sii damqada marka dad eego deegaankayga ila degan ee maalin walba way cunsuriyeenayaan ee haystaan in maxallay iga fiican yihiin ee iga maxallay iga wanaagsan yihiin so
cusurnimo haddaa u damqanaysid si wadajir u wada damqo laakiin ogow adigana maalin walbo dad ku eegaa cunsuriyeysaa ogow maalin walba dad ku eeg ayagoo oynaya seexdaan ogow maalin walba dad dhiig kula wadaaga dal kula wadaaga aqo dad ku seexdaan u heestaan inaysan dalkan lahayn oo laga xigo reer hebel ay kale isbedel isku sameey midkeena midkan laha isbedel thank you so much intaa dhageysata fadlan messagekayga dadka sii gaarsii isbedel ku sameey nafsadaada caruurtaada isbedel ku sameey dariskaada ku sameey midkeena midka kale mid ka fiican ma jirto Soomaali raaskaamoon la sacsan Soomaali ay yihiin qof iiga fiican qof iiga dhow ma jirto thank you so much